dhacdadii legdanka sababtun waxay ahayd sida la sheegay nin lagu magacaabo aburukaana ibnulashdiin oo ah ninka quraysh ugu xooga badan. ninkaas oo sida la sheegay intuu harag ku fadhiisto odhan jira 10 nin hoostiisa ka jiidaan oo ka qaadaan isla markaana laga jiidi karin oo aan laga qaadi karin hoostiisa in haragga kala go'a mooyaane xoog badnidiisa darteed ayaa maalin nabiga sallallahu alayhi wasallam la kulmay oo ku yiri rukaano maad alle ka cabsatid oo aad aqbashid waxaan kugu yeerayo. markaas ayaa uu yiri haddaan ogahay inaad waxaad leedahay xaq yihiin waan ku raaci lahaa. markaas ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri ka war haddii aan ku legdo ma rumaynaysaa. markaas ayuu isagoo yaaban yiri haa qisada dhinaca kalena waxay leedahay isaga ayaa dalbaday soo jeedinta lahaa oo yiri haddii aad ilagado waan ku rumaynayaa. taas uu la jeeday oo uu fahamsanaa isagu inay tahay mucjiso aan dhici karinba. cajiib midday noqotaba ha ahaatee nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri istaag. markii legdankii dhacay dhulka ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tuuray isaga oo aan iscelin karinba. markaas ayaa uu yiri iigu celi ilaa 3 jeer ama 3 goor ayaa dhacday in lagu celiyo. markaas ayaa uu yiri wallaahi muxamadow sallallahu alayhi wasallam tani waa mucjiso weligeyna dhinacayga dhulka lama dhigin. markaas ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam haddaad alle ka cabsato oo waxaan kuu sheegayo aad rumayso waxaan ku tusayaa arrin kale oo ka yaab badan. markaas ayuu yiri oo waa maxay? markaa ayuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaan u yeerayaa geedkan wayna ii imaanaysaa. arrintaas oo nabigu sallallahu alayhi wasallam sameeyey. qisada dhinacyadeeda mid ka mid waxay sheegaysaa inuu ibnulashdiin islaamay ay 300 oo legdanka laysugu dhigtayna lagana helay uu nabiga sallallahu alayhi wasallam u celiyey. dhinaca kalena waxay sheegaysaa inuusan dhacdadan waxba ku qaadanin ee uu yiri dadka ninkii ugu sixirka badnaa ayaan la kulmay oo arkay. kulay sida la ogsoon yahay aburukaana ibnulashdiin wuu islaamay oo axaadiis ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka wariyey meel uu ku islaamayba. ibnulashdiin saxaabi weyn buu ahaa nabigana ka wariyey sallallahu alayhi wasallam axaadiis fara badan. laakiin qisada ayaa qiso dhex martay isaga iyo nabigeena sallallahu alayhi wasallam. nabiga geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u korayey siduu dadkan u islaami lahaayeen islaamka ugu yeeri lahaa isla markaana ilaahayna uu ku karaameeyey ku sharafay mucjisooyin fara badan oo culummada ay ka qoreen kutub fara badan oo waaweyn. haddii qisada aad ka faa'iidaysatay isla markaana aad jeceshahay ka sheekeynta qisada iyo siiradii quruxda badneed nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam laagsar muuqaalka siina faafi ku qor kommentiga salig nabiga inta uu ku qoray adiga waxaad helaysaa ajri dambi dhaaf. waxaad isu tubin aniga waa Siraajudiin Sheekh Maxamed Xasan halkaad ka daawanayso TV-ga caalamiga DSD TV. doonaysa inaad barato qur-aanka kariimka ah higaada carabiga kutubta shariicada islaamka ducooyinka adkaarta adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqo hab online ah haddii jawaabtaadu ha tahay maxadka baytul xikma ayaa kula diyaara ee nambaradan hoos ku qoran kala xiriir mahadsanid.